dhawaad 6 qof oo muslimiin ah ayaa ku dhintay weerar cusub oo ka dhacay mid ka mid ah wadamada dhaca waqooyiga qaaradda Ameerika. Booliiska dowladda Canada ayaa ku dhawaaqay in 5 qof oo muslimiin ah isku qoys ah ay dhinteen kadib markii si ula kac ah gaari loo jirsiyay bartamaha degmada London ee gobolka Ontario. Nin Kristaan ah oo kaxeynaya gaari noociisu yahay xamuul ayaa gaariga jirsiyay qoys muslimiin ah xilli ay ku socdaalayeen wadada hareeraheeda. Ra'iisul Wasaaraha Canada oo hadlay ayaa sheegay in weerarku ahaa mid muujinaya naceebka ka dhanka ah muslimiinta, isagoo wixii dhacay ku tilmaamay fal argagixiso. Dalka Canada wuxuu ka mid yahay meelaha ugu daran ee lagu beegsado jaaliyadaha muslimiinta, ilaa haddana ma muuqdaan wax xukuumadda Toronto ka qabatay.